bismillaahi raxmaan raxiim kulan haboon daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada ugu xiisaha badan ee maanta aan idinku soo gudbin doono barnaamijkeena waa maalintii labaad ee Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay xiisada bariga dhexe cirka ayay isku sii shiriirtay waqti xaadirkan iyadoo markaas la xaqiijinaya in ay muujinayaan in qiimeyn ay muujinayso in weerar uu ka dhici karo Iran inuu markaasi sababi keeni karo 48 saacadood gudahood Mareykanka waxa ka suurtagashay baa leeyahay in uu markaasi weerar uu ku qaadi karo waxaan sidoo kale isla eegi doonaa warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska Ethioth Antha liiraado ayaa goordhoweed daboolka ka qaaday in qiimeyntii hore ee Israa'iil ay ahayd in weerar markaasi lagu qaado Iran haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan in xiisada bariga dhexe ay cirka isku sii shirto haddii dhinaca kale aan fiirino colaadda Israa'iil ay ku hayso Falastiin wiil Falastiin ah oo da'diisu ay tahay 19 sano jir ayaa lagu toogtay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qarax iyo waliba soo kale gantaalo ay ku rideen goob aan sidaas uga fogeyn haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan in mar kale Israa'iil ay duqeyn ku bilowdo iyadoo aan ognahay in lagu guda jiro bishii barakeysaneed Ramadaan waxaan sidoo kale eegi doonaa Kuuriyada Waqooyiga konton gantaal bay soo bandhigtay hadda se ogow kadib markii in ay gudaha ay Mareykanku markaasi ay ku weeraraan bay awoodaan haddii gantaalada tani ay sii xoojiyaan waxaan sidoo kale isla eegi doonaa magaalada Muqdisho maanta waxa ka furmay kulankii u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba xubnaha mucaaradka ugu horeeyaan Puntland iyo Jubbaland maxaa laga filan karaa qodobadaasi waliba wuxuu nagu soo kordhay ayaan saaxiibayaal ku qaadaa laga doonaa qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya idinkan waxaan ka dalbadaynaa saaxiibayaal nooc imaamada oo channelkan Shariif Show subscribe noo saara muuqaalka like-tana saaxiibka ina la dhaafin oo dad fara badan ayay ina tusaysaa maasanidin aan ku bilaabay markan xiisada bariga dhexe ayaa cirka isku sii shiriirtay waqti xaadirkan iyadoo ay soo baxayaan qiimeyn muujinayda in weerar ka dhanaha Iran uu ka dhici karo maalmaha soo socda muddo ka yar 48 saacadood gudahood iyadoo markaas la diiwaan geliyay in Mareykanku uu markaasi gobolka uu ku soo daabulayo hanti military iyo waliba sidoo kale ciidamo ka qayb qaadanaya howlgallada isku dhafkaahi isugu jira cirka iyo badda iyo waliba bariga sidoo kalena waxa la arkaya dhaqdhaqaaqyo oon caadi ahayn oo dib markaasi u xusuusinaya dadka duulaanka lagu yahay Ciraaq ee ka dhacay sanadii 2003 isla galabtan waxa la baahinayaa Morocco oo soo gaaraya maraakiib Mareykan ah ee diyaaradaha xambaara USS General Ford loo yaqaano waxaana intaasi ku xigtay in shirkii golaha wasiirada ee la qorsheynayay inuu markaas dhaco maalinta berita ayaana si degdeg ah loo baajay dhanka kale warbaahinta Israa'iil ayaana markaasi gaar ahaan wargeyska Theopoth ayaana markaasi xaqiijinayda in weerarada ee waqtigan ay bilaaban karaan iyadoo qiimeyntii hore markan Israa'iil ay faraha ka sii bixayso haddaba waxaan isla eegi doonaa wixii kale ka soo kordho qubanayaasheena kale ina soo aadan markana haddii aan fiirino colaadda Israa'iil ee Falastiin lagu hayo dhulka la heestaha daanta galbeed wiil Falastiin ah oo da'diisu ay tahay 15 sano ayaa la dilay afar kalena waa ay markaasi ku dhaawacmeen kadib markii koox gantaalada Israa'iil ay markaasi taageeraan ciidamada Israa'iil ay rasaas ay ku fureen tuulo ku taala daanta galbeed ee markaasi la heestaahay ninkan la dilay ayaa markaasi lagu magacaabaa Nasrallah Abu Siim ayaana sheegay inuu markaasi ku dhintay weerarkii ka dhacay fiidnimadii Arbacadii sida ay markaasi warinayaan wakaaladaha wararka Falastiin iyo waliba Wavatine taa oo noqonaysa dilkii ugu horeeyay ee sanadkan 2026 qof Falastiin ah in lagu dilo rasaas ay isku furayeen gantaalada Israa'iil weeraradan oo ka dhacay tuulo markaasi Khatm liiraado oo ku taala waqooyiga bari ee Jerusalem bariga ee la heystaa intii markaasi weerarkan uu socday ayaana saameyn kale xoogan ka imaaday afar kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale haddii aan fiirino Kuuriyada Waqooyi konton gantaal bay soo bandhigtay hadda si ogow markii ay markaasi gudaha Mareykanku ay ku weeraraan bay awoodaan in ay markaasi Japan iyo waliba sidoo kale dariskooda nidaamkaasi tiro leh sidoo kale ay markaasi ku hubiyaan nuclearka intaasi nidaamka ay ku heesaan waa duulaanka culus ee waqtigan ay muujinayaan si kastaba ahaatee Kuuriyada Waqooyi markan waxay u jeesanaysaa sidii ay gebi ahaanba iyana awoodeeda u soo bandhigi lahayd dadaalkooda iyo waliba dadkooda badankood ciidamada cadawga bay u arkaan in ay si weyn ay markaasi weerar ugu qaadi karaan si kastaba ahaatee Kuuriyada Waqooyi markan waa ay soo jeesatay oo walibana meel kasta iyo waliba si kastaba difaac culus ay xirinaysaa tani waa talaabada ugu adag ee waqtigan ay qaadayso
ilaa ay haatan aan weli la shaacinin qorshaha ugu cad iyo weliba tallaabooyinka ama yoolalka siyaasadeed ee markan kuuriyada waqooyi ay la soo baxayso. haddaba maxay tahay qorshaha ugu adag ee waqtigan ku qasbaya in intan kumanaan ahi ee weliba maraakiib ah ay soo bandhigaan? muqdishona maanta waxaa si weyn ugu furmay kulankii sida weyn loogu dhursugay oo ahaa kulmidda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyo weliba sidoo kale maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo xubnaha mucaaradka inkastoo hadda si weyn markaasi ay isla meel dhigeen ama ay ugu wada doodeen doorka shirka iyo weliba sidoo kale sida wax laga yeeli lahaa iyo arrimaha la isku haysto ay qayb ay ka yihiin. waxa u muuqata markan basal siyaasadeed inuu soo kordhay ogaada oo la socda maanta waa uu furmay shirka barina waxaa la qorsheynayaa in si weyn markaasi loogu doodi doono ajandayaasha ugu adag ee soo yaala waxay ka soo baxay waxay kale ka soo korran halkan idinku kula wadaagi doona saaxiibayaal ilaa dhamaadkan hadda ay la soo gaarteen ku soo biiri channelka oo noo cimaamada subscribe-ka noo saara saaxiibayaal si share garay like-na saaxiib far badan intuu soo samaxsanidin.